hooyaday iyo walaalahay ayaan u sheegay inaan muslimay oo diinta islaamka qaatay laakiin falcelin adag ayaan kala kulmay waa ay garaaceen waa gabar u aabaheed mucallimka ahaa 4 kaniisadood mar labaad ayay masjidka ka carartay waana ay ridowday oo diinta masiixiga ayay dib ugu laabatay kadib markay u adkaysa weyday cadaadiskii iyo cadaabtii uga imaanaysay dhanka qoyskeeda sidoo kalena dadkii muslimka ahaa ay ka weysay soo dhaweyn ayagana waxay kala kulantay dacaayado iyo cadaadis kale oo gooni ah ilaa ay kirishtaanku telefishin soo horfariisiyeen halkaasna ay xijaabka isaga siibtay si live ah gabadhan mar kale ayay diinta islaamka dib ugu soo laabatay iyadoo gacanteeda ku soo muslimisay boqolaal kale oo hore gaalo u ahaa some very bad decisions about maybe television shows that she would do and to take her hijab off under a lot of pressure go'aano aad u xun ayaan qaatay telefishinka ayaan ka soo muuqday waliba aniga oo xijaabkii siibaya kaliya barashar iyo cadaadis dhanka qoyskayga iga saarnaa dartiis ma rumaysan doontid qisooyinka gabadhani ay nolosheeda kala kulantay markii ay go'aansatay inay diinta islaamka soo gasho waa taariikh markii hore baal madow ahayd laakiin ugu dambayn isu bedeshay taariikh dahabi ah inta aanan gudaha u galin qisadan haddii aad muslim tahay waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto siina sheer garayso si uu gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay uga falceliyaan ruba daawuud majiid qacwaar waa gabar uu asalkeedu yahay urduni waxay ku dhalatay sanadii 1981 waddanka Denmark waxayna ka soo jeedaa qoys masiixiyiin ah muddo 6 sano ah ayay ku noolayd Denmark kadibna sanadii 1985 ayaa loo celiyay waddanka Urdun sababta Urdun loogu celiyayna waxay ahayd ayeedeed ayaa geeriyootay aabaheed waxa lagu yaqaanay inuu ahaa mucallim kaniisad ku taala waddanka Urdun sidoo kale qoyskeeda oo dhan waxa ay deganaayeen dabaqa kaniisadda qayb ka mid ah inta ay yareed aabaheed waxa uu ku barbaari jiray kaniisadda aabaheed ayayna u adeegi jirtay oo ilmaha yaryar ayayba kitaabka muqaddaska ah bari jirtay sanadii 2002 ayay ayada iyo qoyskeeduba waxay u hijroodeen dalka Mareykanka sanad kadib aabaheed waa uu geeriyooday intaas wixii ka dambeeyana waa ay ka mashquushay kaniisadii diintii waxbarashooyin kale ayay bilowday saaxiibo kale oo carab ah ayay baratay waxayna noqotay masiixiyadda kali ah oo ku dhex jirta dhalinyaro badan oo carab ah sidoo kale waxay aragtay dhalinyaro sunniyiin ah oo la doodaya mid shiici ah halkaasna waxay ka heshay fursad waxayna dhahday maalle aan ciise masiixi ahayn ayaa jira waxay dhaheen haa ciise waa nabi ilaahay ee ma ahan ilaah waxay ku dooday ciise inuu ilaah yahay oo ay caabudo waxayna dhaheen daliil u keen ciise inuu ilaah yahay kitaabka muqaddaska ahna naga tus meesha uu ciise ku dhahay anigu ilaah ayaan ahay ee caabuda kitaabka muqaddaska ah ayay baartay dhan walba ayay u gadisay waana ay ka weysay xataa cibaarad tusinaysa ciise inuu dhahay ilaah ayaan ahay injiil ayay akhrisay waxayna ku aragtay ciise inuu tuka jiray waxay isweydiisay siduu ilaahay u tuka jiray waa maxay ilaah salaada u baahan qada hore iyo taariikho badan ayay akhrisay waana ay weysay wax sax ah wax walba ay isburinayaan aad ayayna u naxday jawaabna waa ay u weysay dhalinyaradii muslimiinta ahaa waxayna dhahday itusiyo adinka diintiina maxay ciise ka dhahaysaa qur-aankii ayay u sheegeen maktabadda ayay tagtay laakiin wax musxaf ah waa ay ka weysay internetka ayay gashay waxayna ku qortay maada yaquulu alqur'aan can ilmasiix waxaana u soo baxay aayado qur'aan ah oo aad u fara badan oo nabiyullaahi ciise calayhi salaam ka hadlaya si dhammaystirana uga sheekaynaya mucjisooyin sidoo kalena inuu ahaa nabi uu ilaahay karaameeyay haddii aad ilaahay rumaynaysana inay waajib kugu tahay inaad rumayso dhammaan ambiyadii laga soo bilaabay nabi aadam calayhi salaam ilaa nabi muxamed sallallahu calayhi wasallam waxay akhrisay suuratul-faatixa iyo dhowr suuradood oo qur-aanka ka mid ah kadibna waxay dhahday macquul ma ahan qof ummi ah oo 1400 sano ka hor joogay inuu qoro oo hindiso ilaa inuu si waxyi ah ugu soo dega maahane ugu dambayn waxay aragtay suuratul-maa'ida gaar ahaan aayadda 82 a'uudu billahi minash الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون aayadan oo ilaahay uga hadlayo kirishtaanka iyo mu'miniinta labadaba aayadan markay aragtay waxay wacday dhalinyaradii muslimiinta ahaa waxayna u sharaxday dhammaan wixii ay aragtay markii ugu horeysayna tawxiidka ayay ku dhawaaqday waxayna diinta islaamka ku qancday sanadii 2005 halkan waxa ka bilaabmaya noloshii adkayd ee ay gabadhaani gashay iyo qisooyinkii naxdinta lahaa ee ku dhacay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2011 muuqaalku waa u dheer yahay ee qaybta labaad ee qisadeena ayaan ku soo qaadan doonaa muuqaalka like saar oo sii faafi